hindisaagani ku nool degmada Awaare ee gobolka Jaarar ma ahan mid sameeyay qalab mala awaal ah waa mid ku guuleystay inuu sameeyo qalabkan ad arkaysaan ee shaqeynaya isla markaana gaadiid ahaan looga isticmaalo degmadani hindisaha fikradan oo nooga warbixinaya xilliga uu sameeyay iyo waxyaabaha ku dhaliyay ayaa noogu jawaabay sidan xilligan sameeyay ma haynin motor ma haynin dhagax mool ma haynin wax lagu laxaamada ma haynin baytariya gaari intaan isku xidhay baan ku laxaamada xilliga hadda muddo 2 sano meelaha ay ma ka samaystaydo meelaha iska wadayn jiray maadaama iska tahay magaalo aan lahayn adeegan bajaajta saasaan waxaan siri malaha u baahnaan lahayd adeegto meelaha seelada oo kale iyo laga soo tagtay qabalayaasha dhow iyo xaaba noocaas lagu adeego bulshada marka saas ay ku dhalisay marka fikirkii markaan saas siri wallahi waad sameyn kar lahayd waan isku day waan sameeyay kulay saad u jeedaan waad aragtaan waa biro la isu geegeeyo oo tool adu biri albaabada laga sameyn jiray un ka kooban halka laga reebo motorka iyo taayirada motorka hadda waa mooto islaan aragtaan taayiraduna waa mooto balse inta kale waa biro un toolo hodaasado ku in laga sameyn jiray albaabada isu geegeeyo adeega gaadiidka yaryar ee degmada Awaare oo aan ahayn mid laga soo dajiyay dalka dibadiisa ayaa wuxuu daboolaa baahida degmada ee dhanka gaadiidka yaryar iyo waliba tuulooyinka ku xeeran sida uu nooga warbixiyay mar kale muwaadinkani حتى قبلي كان كتجابيه هريو قبلي اللي راح وتعبارات بهاتدي 20 كيلومتر بو جيران magaalada oo u diray baa jirtay oo ku yar intaan u dhiibay hada ka yaraa waday u dhiibay bay qolo geysay oo caana ka soo qaaday qabligaas ku tijaabay markii u horeysay 20 kilomitir qabari jiray waa mooto de kulli bajaajta waa ka yar orod roon tahay adu waxay ka soo noqotay ilaa hal saac meel haba ka soo noqotay